madaxweynihii Axmed Ducaale safar degdeg uu ku baxay laakiin anaa u jooga booskiisa anaa ku hadlaya marka yaan waaska iyo yeesaslihin waa la maqaya runtii waxa galmudug ka dhacay wax taariikhi ah dadka reer galmudugna waxa weeye meel ay joogaan iyo ummadda Soomaaliyeedna sida quluubtooda ay ugu faraxdeen waa la arkay yaani waa la ishayn waayay galmudug waxay ahayd meel lagu bartay ishaysad iyo khilaaf iyo isqabqabsi iyo madaxweynayaal meel kala jooga iyo baarlamaano kala jooga iyo shirar jaraa'id oo la isku qabanayo iyo warqad marka mid qoro mid kala warqad kala qorayo waxaan u malaynayaa maanta waxaan ka ducaysanaynaa arrintaasaan ka ducaysanaynaa ilaahayna waa kii naga waday waana kan dawlad goboleedyo iyo dad badan oo muddo dheer jiray ay ku taamayaan meesha galmudug maanta joogto inay soo gaaraan runtii waxaa la yiraahdaa tusaalahaas dhowr meeloodna waa u soo qaatay libaaxa wuxuu ceyrsadaa baciidku wuxuu ku socdaa 90 kilomitir saacadii libaaxuna 58 kilomitir saacadii buu socdaa haddana inta ka daba tago ayuu qabtaa suurtagal ma ahna 40 kilomitir maaragtay farqiya 32 kilomitir ayadoo idin dhaxayso inuu ku soo qabto suurtagal ma aha laakiin sirta ku jirta qabashada waxa la yiri baciidku wuxuu dhugtaa gadaal asagoo isle ma lagu soo dhow yahay marka habsa socodkii waa ka habsaamaya markuu wax yar socdaba dib u fiirinaya ma lagu qabtay waad libaaxina waa soo durkaya xawaarihiisa ku socdaa ilaa uu ka gaabiyo 58 saacadii marka dambana qoortu isku jabiya waa aragteen meelaha animal discovery iyo meelaha sida lagu soo bandhigayo galmudug gadaal bay fiirinaysaa dad dheereeyay way tahay runtii oo socod dheer xamar bay camireen South Sudan bay camireen Nairobi bay camireen South Africa ayay dadkeedu wax badan ka dhisteen laakiin marka deegaankooda la fiiriyo waxa is leedahay maxaa ku dhacay dib u fiirinta way waxaan is leeyahay annaga dib isku fiirin jirnay annaga is ceyrsan jirnay waxay la tahay wixii hadda ka dambeeya xawaarihii loogu talagalay dadka galmudug inay ku socdaan oo 90 iyo ka sii dheera inay ku socdaan waayo dib u fiirin dambe ma jirto taasa waxay keenaysaa in yididiilo badan ee dadka reer galmudug ay helaan marka runtii waxaan baliyeynayaa madaxweyne Axmed Ducaale iyo madaxweynaheena Axmed Cabdi Kaariye inay dhameeyeen si hoose u dhameeyeen arrimihii dhexdooda ahaa in kasto dadaal xoogan lagu bixiyay waxa ka sii horeeyay dadkii tabashada qabay murashaxiinta ahaadaan siyaasiyiinta ahaadaan iyagana waa soo dhamaatay waxay la tahay hadda waxa la baadigoobayaa qof tabasho qaba ma jira reer galmudug siyaasi ah ayay madaxweynaha ku dhawaaqayaan madaxweyne ku-xigeenkii ma jira qof cid og baadi baa la jishay dadku fiirin jireen qof meel ku og ma jira qof wax qaba si loo daaweeyo intaan gaari u dhaqaaqin haddii aysan waxba jirin waxba lama sheegin waxay la tahay wixii hadda ka dambeeya waa la dhaqaaqaya dibna lama fiirin doono waxa runtii galmudug tii siyaasiga ah waa dhamaatay abwaankana waxaan leenahay saan gabay uga sugay inuu siyaasad noo galay abwaankii marka abwaan waxyaalaha la iska daweynayo nin walba professionkiisa inuu qabsado hadda wixii ka dambeeya marka waa maasan yahay ninka dhakhtarnimadiisa waa inuu aadaa kan xanaanada xoolaha waadaa abwaankuna abwaannimadiisa joogo waxaan rabaa runtii waxaa jira cudur yar oo iska soo socday oo weli galmudug meelaha qaarkood laga maqlayo inkastoo dawladda galmudug madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay direen ciidanka ku kala dhex jira cudurka kaliya oo nagu harsan reer galmudug haddaan nahay oo ay tahay cudur gabow ah islaamnimadeena aan u fiicneen dhaqankeena aan u fiicneen waa cudurka isdilka qabiilka ku salaysan iyo qabyaaladda inuu naga soo gabagabo degdeg waa cudur bulsheed
bulshadeennu hayaa bulshada Soomaaliyeed oo dhanna waa haya laakiin meeshan waxa moodaa cudurkaas inuu jiro aadna uu xoogaana meelaha qaarkoodna ka nool yahay waxaan ku baaqaynaa in xabadda meel kastoo ay ka socoto Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Galmudug in la joojiyo waxaana runtii si degdeg ah looga howlgalay la iskuma sii fiirsan dagaalka hadda maalmihii dhawaato meelahan ka socday dhabada agteeda dawladda Galmudug way ka howlgashay ciidankiina meesha ku sugan yihiin odayaasha dhaqanka iyo dadka siyaasiyiinta xildhibaanada Galmudug ee localka ay dhammaan in laga wada qayb qaato in la damiyo la soo afjaro wax la isku hayana miiska wada hadalka la isugu yimaado taas kaliya noo harsan baan u malaynayaa waxyaalaha yarkaayo horumarkeena diidaya wixii intaas ka soo haray waxaan isleeyahay waa habsaan baan nahay deegaankan weyn oo ballaaran oo badda dheer leh dekad ma leh deegaankan waddo fiican ma leh waddadaas jajabsan ayuu hadda leeyahay laakiin qoriga zuuga 100,000 baan u ogolnahay ama 100 iyo xoogaa kun qoriga dhashiikaha oo la isku dilo oo beeluhu samaystaan 30,000 buu ku dhow yahay iyo dhowr iyo 20,000 dhaqaalahaas waa inuu aadaa horumarka dhaqaalaha dilka loo isticmaalo oo dhan inaan geyno weeye horumarka ganacsatada iyo dadka reer Galmudugna hadday deegaankan uga cabsan jireen midnimo ma leh waa ku khasaaraysaan xoolo haddaa gelisaan South Sudan oo cawaani degantaa ka roon ama meelo kale South Africa la isdilayo la isgowracaya ka roon maanta nabad weeye waa la maal gashan karaa waa furan tahay wax haysto ma leh dekadaashiisa iyo dhulkiisa caadiga iyo deegaankan oo dhami waa ka suurtagal waxaan u malaynayaa rule of law inuu ka jiri doono hadda kadib aysan dhici doonin qof license u haysto inuu inta wax dilo maqaayada ka sheekeeyo inay soo gabagabowdo dadka dilka inta wax dila sida ayagoo ruqsad u haysto kale haddana bulshada iska dhex jooga taasi inay naga soo gabagabowdo way ruqsadaas